بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تودوا صاحبيال muuqaalkan waa muuqaalkii 13 ee barashada MS Word. Waxaan ka soo baxnay table barashadiisa afar muuqaal aan ku soo dhameeyay. Muuqaalkan waxaad ku baran doontaa sida Quraanka Kariimka loogu soo darsanayo MS Word. Tusaale ahaan fiiri hadeer waxaan soo kicinay wordkii aan soo kicinay. Waxaan rabaa inaan Quraan aan qoro ama aan ku soo darsado. Tusaale fiiri halkan meesha ugu dambayso ayaan ku dhufanayaa. Halkan waxa ku qoran Al-Quraan. Halkaas ayaan furayaa kadibna waxaan leeyahay Get Arabic ayaan leeyahay. Quraan Arabic ayaan u baahanahay. Suurada u baahan tahay. سورة الفاتحة ayaan doortay kadibna aayadaha ayaa halkaas ka dooranaysa ilaa aayad toddobaad u baahanaa leeyahay kadibna okay leeyahay waa kan suuratu al-Fatiha waa kan way soo gashay hadii suurad kale u baahan tahay halkaas ku dhufinaysa kadibna Get Arabic ayaa ku dhufinaysa waa kan halkan ku dhufo waa kan suurada u baahan tahay halkaas ka soo raadi kadibna dooro oo okay sidoo kale translate uu leeyahay waa kan Arabic translation waa ku dhufan kartaa kadibna aayada translate u baahan tahay halkaas ka dooro kadibna okay waa kan translate kan hoos ayaa ku qoraya laakiin adiga marka hore kuma jiro application kan oo kuma shaqeynaa meeshan ugu dambayso aad ma xasdan kuma laha biyo ay ku dambeeyay si markaad u soo darsato ayaan ku tusayaa waxaad tagaysaa adkan iga xir on save day waxaan tagayaa downloadska ayaa tagayaa linkiga waxaan ku soo dhigi doonaa description-ka application-kan ayaan tagayaa compressor ayaa ugu jira software-ka waa kan Al-Quraan ayaa lahaa zip ayuu ku xiran yahay waa kan zipkan asigoo ku xiran ayaa waxaan ku soo dhigi doonaa video description-ka YouTube-ka halkan marka hore waxa ka naqnay qaab firis ahaan hadii ku jirin zip lagu furiyo si marka hadii uu kana wada firis ahaan hadii zip ku jiro waa ku fur kartaa laakiin hadii zip ku jirin ama zibiyada lagu keenayo window-ga marka qaar ku shaqeynaa si aad marka ku shaqeeyo raadkila ku duleedahay raadkiliga caadiga ku duleedahay kadib waxa leedahay open with ayaa leedahay kadib waxa raadinaysaa tirjida Microsoft Store aad ka raadinaysaa waxa raadinaysaa waxa waay Breezip ayaa raadinaysaa application kaas wax badan ayaa lagu furayaa oo kombiyuutarada marka hore aan ku maanay application kaas waa kan application kan Breezip ku qoran tahay ayaa waxa leedahay marka halkaas ayaa ku dhufanaysaa kadibna install ayaa leedahay waa kan application aniga hadda waxa dhawayaa launch waa kan waa ugu jira this protect is installed hore ayaa loo dejiyay adiga marka install leedahay xogo ayaa sugaysa kadibna waa ku soo degay automatic marka installation ku dhameeyay launch ayaa leedahay kadibna asiga ayaa hoos ku galay application marka aad zip aad ka furto extract aad ka samayso folder-kan ayaa ku samaysmay folder-kan waa kan application ayaa ku dhex jira application-kan aad double click ku siinaysa kadibna waxa leedahay yes waa intaas kaliya yes adeeysa wax kale ma sameynaysid asiga ayaa waxa ku soo galaya word ayaa ku soo dhex galaya wordka aad u baahan tahay ayaad soo furinaysaa kadibna halkan ayaa furaysaa ku qoran tahay add in Al-Quraan ayaa furaysaa waa kan intaano qayb ayaa ka sameyn kartaa Get Arabic suurada aad u baahan tahay halkan ka dooro halkan oo kale aayadaha aad u baahan tahay meeqa aad u baahan tahay halkan ka dooro meesha bilaaysa soo kale halkan waa bedeli kartaa okay waa dhigi kartaa waa kan Quraan ina qoran ma baahna waa diyaariyay marka aayadaha qaar waxa kaaga baahan yihiin shidka shaqala ayaa kaaga baahan yahay Arabigna ma laha sidoo kale waxaan ku tusayaa fiir hadeer waa kala laabanaya midkan halmar iga xir soo laawo waxa rabaa hadeer Arabi ina qorto waa kan Arabi iyo qormaayo computer-kan si aan Arabi u qoro waa inaan soo darsado horta luqadda Arabiga si marka u bedesho inaan ku jirto in kala seed ogaato alt shift isla qabo waa kan wax isma bedelayo wali waxa qormaayo Ingiriis ayaa qormaayo waxa tagaysaa marka start menu ayaa tagaysaa kadibna waxa tagaysaa setting-ka caadiga ayaa tagaysaa kadibna waxa tagaysaa time and language halkaas ku dhufinaysaa kadibna halkan oo qoran tahay language ayaa ku dhufinaysaa halkan qoran tahay hadeer waxa u jirto United States English bisa ku jiro halkan waxa leeyahay marka aad ayaan leeyahay ku soo darso halkan ayaa waxa ka raadinaysaa Arabiga aad u baahan tahay Arabi nooca u baahan tahay Arabiga waa farbadan yahay laakiin aniga waxaan jeclahay mamlakatul Arabiya Sacuudiya midkaan rabaa kaas ku dhufinaya kadibna next ayaa leeyahay install ayaa leeyahay waa kan automatic preparing ku jirta waxa raasugaysaa laakiin halkan waa isbedeshay soo jeedaba hadeer waxa ii soo galay Arabic waa iska xiraya marka halkan fiiri hadda waxaan qoro waa kan Arabic waa qori karaa alt shift wana ku bedeli kartaa halkaas inta doorato halkan inta doorato English waa ka dhigi kartaa sidoo kale adigoo halkaas tagin hadda fiiri Ingiriis ayaa qoraya haddii rabo inaad bedelo alt shift ayaan qabanaya waa kan automatic Arabi isku bedeshay waxaan filayaa inaad wax badan aad ka faa'iiday muuqaalkan fadlan la wadaag asxaabtaada haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xiran channelka Balawi fadlan ugu soo biir